السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفتا له دمانتين وإذن سلامي وادكم هادسنتين ديرجلينتا aad noo samaysaan magacayga waa maxamed maxamuud cabdulaahi haddaad rabtiin maxamed yeelkacaas waa ugu yeeri kartaan ama maxamed deeq la yaqaanaa marka youtube-ka horta barnaamijkan wuxuu quseeyaa youtube-keena jiilka team marka waad ku mahadsantihiin dhiirigelinta iyo garab istaaga aad noo muujiseen marka insha Allah barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa fiidiyoyada oo youtube-ka aan soo dhigno iyo inta uu jiro iyo ragga ila qayb qaatay fiidiyoyadaas inaan sameeyo insha Allah isla socono horta fiidiyo koowaad oo aan sameynay waxaa tahay waa laga yahay waxaan ula jeednaa dad waxaa jira isla lacsan oo ay isku maleeyo inay khatar yihiin waxaa jiro laakiin dad ka khatarsan marka waxay ka hadlaysaa marka qof isla dhacsan oo balaa isku maleeyo oo inuu wax walba oo khatar iyo kaligiis meel saar isku maleeyo laakiin dadka khatarsan ay jiraan ayna heli doonaan marka insha Allah fiidiyoga saasa kula jeeday marka waxaa jira asxaab badan oo isla sameynay marka waxaa jiray dhiirigelin oo aan kala kulnay saaxiibkeen Baawinho Maxamed Baawo marka uu ku mahadsan yahay halkaan uu mahad celinayaa iyo dhamaan inta ka qayb qaadatay marka dhiirigelintu waa muhiim aad oo noo dhiirigeliyay saaxiibkeen marka waxaa jirtay fiidiyogaas waxaan ku sameynay 4 qof aan ku sameynay cameraman-ka waxaan u ahaa Baawinho iyo Axmed Tuuni marka aniga Maxamed noo ku jiray oo sheekhiga ahaa matalay waxaa ku jiray Daadiyo iyo waxaa kaloo ku jiray Cabdulaahi iyo waxaa ku jiray Dirow marka inteenaba maasha Allah jilin anagoo ku cusub jilinka haddana jilin macquul aan soo bandhignay dadkana way nagu dhiirigeliyeen oo nagu amaaneen marka insha Allah waxaas wax ka fiican waan soo bandhigi doonaa dhiirigelintana asiideena bartiina ka sii wada fiidiyoga labaad la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan waxay ka hadlay nin garyaqaan oo gar eexad sameynayo oo garsoore marka laba qof oo dood ka dhaxeyso waxay u imaanaysaa nin oo dhaqameed oo garsoore marka si oo u xaliyo markuu arko baash inuu asaga ku jiro oo baash gar eexad oo sameynaa marka taasay ka hadlay waa maamahan Soomaaliyeed la wada yaqaano la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan taasna adi jilinkeeda waa iska fiicneen Maxamed Daadiyo iyo Cabdulaahi Dheere iyo waxaan sameynay iyo aniga Maxamed Deeq cameraman-kan waxaan u ahaa Baawinho saaxiibkay aad u salaamaa fiidiyo saddexaad waxaan ka hadlaynaa waxbarashada marka imtixaanaadka waqtiga ay jiraan iyo saameynta uu ku leeyahay baraha bulshada iyo dhibaatada uu u geysto ardayda baraha bulshada isticmaasha xilliga imtixaanaadka iyo baraha bulshada ma la isku wadi karo marka caqabadahaas anagana waa aragnay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda badan way arkeen wacyigelintaas aan kaga jeednaa waxaan sameynay aniga iyo Cabdulaahi Dheere sheekada waxaan u sameynay taas anaga nagu dhacday waayo baraha bulshada waqtiga markuu ka cunaa ma dareemis waqtiga zaid oo ka cunaa mana dareemis adoo iska faraxsan hadhow walaak shalayna markuu danaha ku dhaafiyo tan saddexaad saasan ugu gudubnayna tan afraad ila tali faculty doorta taasna anaga nagu dhacday marka dhalinyaro badan oo ka caawinaysana waa aragnay marka anaga intii aan ka hadli karnaa ka hadalnay shortigaas yaraan ka sameynay marka jelis ahaan oo jeedna qof oo ka dhacsan faculty-ga soo ku dooran lahaa ku wareersan oo waxbarashadii aad u danaynaay iyo qof waxbarashadii ka qoostay ayay ku saabsan tahay iyo aniga wadada u saxayo marka waxaan jilnay aniga iyo Yusuf iyo Cabdulaahi Dheere marka intaasaan ku jilnay 3 qof fiidiyoga shanaad macallimiinta iyo dhibaatooyinka ay soo mareen macallimada wax laga aaminsan yahay maxay ka aaminsan tahay macallimada marka anaga halaasan ka soo qaadanay fiidiyogaas yaraan ka sameynay jilaynimo aniga macallin bixiya marka cunug yar oo faculty oo jaamacad ku cusub iyo macalinka ayaa hadalkaas u dhaxmaray marka
waxayna ka hadlaysay macalinimada ardayda qaar waxay ka aaminsan yihiin. Okay, taas shanaad saasaan ugu bixinaa. Hadda waxaan jirsanay bil videogi shanaad aan maraynaa. Marka insha Allah idinkana dadaalkiina wada, anagana dadaalkiina wada, idinkana dhiirigelintiina u baahanahay. 5 video iyo views yar. Okay, laakiin qasab maaha inaa views badan heshid marka aad cusub tahay. Mid kale anigaaba dhiirigelin socota iska imbrand. Marka insha Allah anagana waa is dhiirigelinayna, idinkana dhiirigeliya. Horey oo soconaynaa la'aantiin waxba ma naqan karno. Idinkana dhiirigelinta wada, anagana dadaalkan wadaynaa. Insha Allah videoda iyo jilinkaba waxaan isku dayaynaa inaan sii cusboonaysiino oo sii tayo sii yeelno. oo insha Allah jilistana dad badan oo ku fiican jilistana inaan meesha ka dhex helno insha Allah. waxaan kale u baahanahay inaan idin sheego dhammaan qofkii u baahan inuu xirfadiisa jilaynimo oo ku soo bandhigo welcome aan leenahay, gacan furan aan ku soo dhaweynaa. ma ahan barteenan inaan furanay 2 qof oo bas ku heshii, ma aha. qof walba oo jilistiisa ku soo bandhigayo anaga editinka iyo wax walba iyo qarashka oo u baahan yahay videogaas iyo qoraalka iyo wax walba barnaamijyada anaga soo diyaarinayno. qof walba oo jilistiisa rabo inuu tijaabiyo welcome. anaga hadda YouTube keenan waa YouTube oo caadi dhiirigelinta iyo wacyigelinta iyo waxyaalaha oo niyad dhiska iyo waxyaalaha oo wacyigelinta oo bulshada ka dhex jiro aan soo gudbinayna, ma aha YouTube iska qaab daran. insha Allah saas sameynana idinkana waa ku maasantihiin dhiirigelintiina. welcome insha Allah anagana video marka sii dambeeso waa sii qurxinayna, waa sii kordhinayna. idinkana dhiirigelinta xaqiin weeye. salaamullah.